halkani waa BBC London Afrikada bari saacadu waa 9kii fiidnimo oo buura ah wanaagsan idinkiin baa khiyaartana dhageysanaysaa meel kastoo caalamka ku sugan tihiin waa habeen talaata oo 40 soo galayso bisha May waa 5 sanadka 2018 qodobada aan barnaamijka idinku haynana waxa kamida Ethiopia oo sheegtay inay si buuxda u ogolaanayso heshiiskii soohdinta ee ay Eritrea isku hayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle iyo askar kale oo la laayay qaramada midoobay oo qayladaan ka soo saartay isticmaalka bacaha iyo dhibaatooyinka ay badda ku hayaan. At the moment, the producers of plastics only pay for something like 10% of the life cycle of the plastics or the materials. Ethiopia waxa laga qaaday xaaladii degdeg ahayd ee dalka uu ku sugnaa. xukunka degdega ee la qaaday waa sax wax qasa wadanka kama jiro annaga ka Soomaaliyaanna nama khusayninba waxay dareemayaan dadku xornimo qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka iyo dabcan wararkii ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena caawiya caalamka isku soo dubareeday Axmed Cabdinuur aniga waa Cabdi Xaafi Daawil Ismaaciil aan idila socodsiinaya hadii ilaahay idmo iyo caalamka marka hore waxaanu ku bilaabaynaa wararka BBC-da Ciise Xaaji Cabdulla ayaa inoo haya Ciise waa hagaag waynu u soo noqonaynaa Ciise Xaaji Cabdi oo qodobada oo warkayna la socodsiinaya balse dhageystayaal haddii aynu qodobkeena barnaamijka ugu horeeya aynu u gallo inta uu Ciise hawada inoo soo galayo sidii aad ku maqlayseenba qodobadii aan iminka barnaamijka idinku hayay dalka Ethiopia waxa ay ku dhawaaqday inay ogolaanayso heshiiskii soohdinta ee ay Eritrea ku muransanaayeen muddada dheer dagaalo badanina ay ku dhex mareen dad askar badanna ay labada dhinac ku dhimatay Maxamed Cabdi ayaa iminka stuudiyoga la fadhiya Maxamed aad ayaad u mahadsan tahay Ethiopia ra'iisul wasaaraha cusub iminka siyaasad cusub ayaad moodaa inuu la yimi dagaalkaas horta wuxuu dhacay markuu sanadku ahaa 1998 waxaana ku dhintay askar aad u fara badan waxa la magacaabay guddi qaramada midoobe ay u magacaawday in ay borderka labadaasi xuduudka labadaas dal ay ku muransanaayeen in la xadeeyo muddo hadda 16 sano laga joogo ayaa la xadeeyay Ethiopia ayaa diidanayd Eritrea way aqbashay haddana waxaa muuqata in Ethiopia ay aqbashay oo ay u hoggaansamayso laakiin marka la fiiriyo xuduudkaas ay labada ciidan isku horfadhiyeen ilaa ay wixii dagaalkaas ka dambeeyay wax wada hadal oo dhex maray ma jirin in ay ayaga ka heshiiyaan dhib ay noqotay laakiin Eritrea magaalada Badma ama tuulada Badma baa la yiraahdo ayaa lagu diray waxaana guddigaasi xukumeen in ay ku taalo wadanka Eritrea gudihiisa Ethiopia ma aysan ogolaan arrintaasi hadda waxaa muuqata inay ogolaatay waxaa la fiirinayaa ama laga dhursugayaa waxa ay Eritrea samayn doonto inkastoo ay 15 sano ka hor aqbashay waa hagaag Maxamed Maxamuud sidaad sheegtay Ethiopia muddo dheer ayay diidaneen inay ogolaato heshiiskan maxaa lagu cabiri karaa ra'iisul wasaarahan cusub cadaadis dhinaca beesha caalamka kaga yimi maxay kula tahay sanadkii la soo dhaafay ururka midowga Yurub ayaa u soo jeediyay dawladda Ethiopia inay aqbasho xuduudkii mataqaanaa guddiga xuduudada ay sameeyeen 15 sano ama 16 sano ka hor in ay aqbasho taana waxaa sidaad la socoto ururka midowga Yurub wuxuu ka mid yahay dalalka aad u barataara dhaqaalaha wadanka Ethiopia waxaana muuqata resources fara badan ama kharash fara badan inuu Ethiopia ka galayay xuduudkaasi laakiin sidii ay dawladdan cusub u timidba waxaa muuqata in nabadaynta ay Ethiopia u hanqaltaagayso inay dhab ka tahay haddii ayba aqbashay xuduudkaas ay diidanayd muddo 16 sanadooda
waa hagaag maxamuud caddi aad ayaad u mahadsan tahay. asxaabta facebooka qaar ka mid a ayaa ra'yigooda ka soo dhiibtay. waxaa ka mid ah faarax cabdi xuseen guure, waxa uu joogaa gaalkacyo. waxayna ila tahay ayuu yidhi waa wax fiican in khilaaf laga gaadho soohdinta labada dal, waana macquul inay dhacdo isku furfurmaan. maxamed deeq waxa uu joogaa magaalada jegjiga. waan soo dhoweynaya ayuu yidhi heshiiska etoobiya ku dhawaaqday uu dhex mari doona eritrea iyo etoobiya, waana tallaabo aad u wanaagsan ayuu yidhi. waa hagaag halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da. wararka kale ee iminkana soo gaarayana waxa ay sheegayaan in 2 xildhibaan oo ka tirsan golaha baarlamaanka hirshabelle iyo 6 askari ay la dilay. wariyaha b b c da ee magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan ayaa iminka khadka toos uga jira. ibraahim aad ayaad u mahadsan tahay. sidee ayaa dilkan u dhacaya se ka dambeeyey? cabdi xaafid, weerarkani wuxuu dhacay gelinkii dambe ee maanta, wuxuuna ka dhacay meesha la yidhaahdo ilbaq oo ah meel hawd ah oo u dhexaysa deegaanada qalimow iyo gololey oo ka tirsan degmada balcad, waana wadada u dhexaysa magaalooyinka jowhar iyo balcad ee magaalada muqdisho. kolanyo ee ciidamada dowladda ah oo ay la socdaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabelle ayaa weerar culus halkaasi lagu qaaday. khasaare xoog leh ayaa weerarkaasi uu dhaliyey 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka hirshabelle oo magacyadooda lagu kala sheegay ismaaciil muumin hilowle iyo sheekh daahir mukhtaar ayaa weerarkaasi dadkii lagu dilay ka mid ahaa. sidoo kale waxaa ku jiray gudoomiye ku-xigeenkii degmada raagaceelle muuse cabdulle oo isna weerarka lagu dilay. sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadkii weerarka lagu dilay sarkaalka haystay ee ciidanka ilaalada ee madaxweyne ku-xigeenka hir shabeelle oo magaciisa lagu soo gaabiyey xasan dhegey. weerarka waxaa sheegtay ururka al-shabaab. goor dhoweyd waxaan taleefonka kula hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka hirshabelle maxamed cali caadle. waxaan weydiiyey khasaarihii galabta ka dhacay halka lagu magacaabo ilbaq. bismillahi raxmaan raxiim. meeshaas waxaa galabta musiibo ka dhacday. waxaa marayay niman xildhibaano ah iyo maaragtay ciidamo oo ilaalo ah oo waday. marka meel oo geeda dhexdooda intay qoladii nabadiidka u galeen, marka baabuurtii meesha maraysa ay waxay ku dhigteen qoryahan ciidamada oo waaweyn oo waxa qarxiyeen. meesha waxaa 2 xildhibaan iyo ciidan dhowr ayaa ku dhintay. waa badan yihiin ciidankaada tiradooda saxa ma hayo, laakiin xildhibaanada iyo ciidamadu ilaa 10 ayay kula dhowyeen. wasiir maxamed cali caadle waxaa kale oo b b c du ay weydiisay sababta ay weerarada al-shabaab halkaasi ugu soo laalaabanayaan. wuxuu sheegay in xilligan roob badani uu dhulka ka da-ay, islamarkaana dhir badani ay wadada dhinacyadeeda ay ka baxeen, sidaana ay gabaad uga dhiganayaan marka ay weerarada wadada kusoo qaadayaan. cabdi xaafid, wadadan u dhexaysa muqdisho iyo jowhar gaar ahaan aaggan hadda weerarku ka dhacay dhowrkii bilood ee ugu dambeeyeyba weerare isxixiga oo khasaare badan dhaliyey ayay al-shabaab ka fuliyeen, kuwaas oo ay ku beegsadeen ciidamada midowda afrika, ciidamada dowladda iyo saraakiil dowladda ka tirsan. ha yeeshee maamulka hirshabelle oo kaashanaya ciidanka militariga soomaaliya iyo kuwa amisom waxa ay sameeyeen inay saldhigyo ka samaystaan aagaga ay markasta weerarada kasoo qaadayeen. wasiir maxamed cali caadle oo aan weydiiyey sababta arrintaasi u baajin weysay weerarkii maanta, wuxuu sheegay inaanay suurtagal ahayn in qayb kasta oo wadada ka mida askari la istaajiyo wadada dhirirkeeda darteed, taasina ay tahay sababta ay ugu dhigradeen inay soo galaan. wuxuu sheegay in meesha weerarku ka dhacay aaga ku dhowdhow ay ciidamadu joogeen, laakiin weerarku ahaa mid gaadma ah. waa hagaag ibraahim maxamed aadan, aad ayaad u mahadsan tahay. wariyaha b b c da oo khadka magaalada muqdisho toos uga jiray, isagoo inaga warramayey xildhibaanadaasi iyo askarta ay al-shabaab laysay. halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da. barnaamijkeennii caawiya caalamka ayaa toos ula socotaan. warar kale ayaa inoo soo socda oo ku saabsan soomaalida, balse dalka uganda 7 qof ayaa loo xilay dibadbax aanay fasax u haysan oo ay samaynayeen kadib markii la isugu yimi mudaharaad lagaga soo horjeedo gabadh la afduubay kadibna la khaarajiyey. booliiska ayaa waxa ay sheegeen in 42 afduub uu uganda ka dhacay ilaa bilowgii sanadkan laguna beegsado dumarka. waxa kale oo ay dadku sheegayaan in ay dowladda aan idhaahdee waxa uu culays ka soo fuulayaa shacabka oo la leeyahay
waa in ay si deg dega xaaladaasi u dejiso. wariyaha b b c da Catherine Bayarohanga ayaa warbixinta noo soo dirtay. Axmed Cabdinuur ayaana inoo soo jeedinaya. ciidan booliis ah oo fara badan ayaa la soo dhoobay agagaaraha xarunta taliska booliiska ee caasimadda Kampala ka hor mudaharaadka haweenka. ugu dambaystii waxaa halkaas gaaray haween ka yar 20 iyo rag u ololeeya arrimaha haweenka oo wata halkudhegyo iyo naxashyo iyagoo isku dayay inay galaan xafiiska taliyaha booliiska. dadkaas oo ay horkacaysay Stella Nyasi oo arrimaha haweenka u dhaqdhaqaaqda maxkamadna loo soo taagayo inay cayday madaxweynaha dalkaas Yoweri Museveni ayaa waxa ay ku heesayeen hal la joojiyo dilka iyo xoogidda haweenka lagu hayo. booliisku waxay taas uga jawaabeen inay xiraan 4 nin iyo 3 dumar ah. waxaa dhammaantood lagu eedeeyey isu imaatin sharci darro ah, kadibna damiin ayaa lagu sii daayey. mas-uuliyiintu waxay weydiisteen dadka mudaharaadaya inay qorshaystaan kulan rasmi ah oo dacwadooda ay ku soo gudbiyaan. waxaa jiray 42 kiis oo la soo wariyey afduub tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan. 8 qofna waa la dilay, laakiin booliisku waxay xogtan bixiyeen 2 toddobaad uun ka hor. waxaana jiray warar ay jaraa'idku qoreen in wixii markaas ka dambeeyey ay dhaceen kiisas noocaas oo kale ah. sanadkii hore in ka badan 20 haween ah ayaa si xun loo dilay ka hor intii aan meydadkooda lagu tuurin gudaha iyo agagaaraha magaalada Kampala. Axmed Cabdinuur ayuu u mahadsan yahay. warbixin ay qaramada midoobay soo saartay ayay ku sheegtay in wax ka yar boqolkiiba 10 dib loo warshadeeyo balaastigga la sameeyo. baahida ah in la xakameeyo waxyaabaha ka samaysan balaastikadana natiijooyinka la duwan ay ka soo baxayaan. warbixintu waxa ay sheegtay in caalamka sanadkii la isticmaalo ka badan 5 trilyan oo baco ah. dalka Shiinaha ayaa ugu badan isticmaalka bacahaasi, halka Maraykanka marka la eego dad ahaan ay iyaguna aad u badan yihiin. warbixintu waxa kale oo ay sheegtay in ilaa $50 ay mamnuuceen isticmaalka bacaha iyo maacuunta bacaha ka samaysan. waxaanay qaramada midoobay soo jeedisay in la helo nidaam wanaagsan oo lagu xaliyo dhibaatada qashinka, dhaqaalaha wax ka tara bii'adana u wanaagsan. madaxa barnaamijyada badaha ee qaramada midoobay Lisa Emilia Stephenson ayaa sheegtay inaan la isku halayn karin oo keliya in ay dowladuhu xeerar cusub soo saaraan. maareeyaha guud ee ururka dib u warshadaynta bacaha ee dalkan Ingiriiska ayaa sheegay in dalalka sameeya bacaha ay qaataan mas'uuliyadda dhibaatooyinka ka yimaada isticmaalka bacaha. shirkadaha balaastikada sameeya waxa ay bixiyaan oo keliya 10% hawsha dib loogu celinayo balaastikada ay sameeyaan. waxa ay bixiyaan oo keliya 10% in dib loo celiyo oo deegaanka laga badbaadiyo. waxa aan doonaynaa waxay tahay in shirkadahaasi ay mas'uuliyad qaadaan oo ay 100% bixiyaan kharashka ku baxaya sidii balaastikadan dib loogu celin lahaa. waa hagaag wararka Itoobiya ayaynu ku noqonaynaa. baarlamaanka Itoobiya ayaa u codeeyay in dalka laga saaro xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay bishii February dalka oo dhan si loogaga hortago dibadbaxyo baahsanaa oo wadanka ka dhacay. golaha wasiirada ayaa sheegay in badiba sharcigii uu dib ugu soo laabtay loona soo celiyey meelo badan oo dibadbaxyo lagaga dalbanayay in dib habeen lagu sameeyo dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda ay 3 sannadood ka socdeen. haddaba wariyaha b b c da Cabdinaasir Xikam ayaa mikrofoonka la dhex maray dadweynaha reer Jigjiga daroonkooda ku aadan xukunka degdega ah ee la qaaday. magacayga saddexan waa Axmed Cali. xukunka degdega ee la qaaday waa sax, wax qasa wadanka kama jiro. annaga ka Soomaaliyaanna nama khusayninba. waxay dareemayaan dadku xornimo, waxay ra'yigooda ka dhiibanayaan. waa si fiican xukunka degdega ha la qaado, waa si fiican. dadku waa xornimo ay dareemayaan. magacaygu waa Axmed Weli Maxamuud oo loo yaqaan Axmed Salaxaad. xukunkan degdega ee hadda la qaaday annagu kulli waxaan u aragnaa guul baan u aragnaa. sababtoo ah waxay ka dhigan tahay waxaa xalismay waxyaabihii loo soo saaray maarta xukunka ayaa la xaliyay ka dhigan tahay. dowladda laftirkeeda waxaan ka codsanaynaa haddii ay qaaday emergency haddii qaaday in ay xaliso hawshii oo maaragtay ay gacanta ku dhigto oo insan dhibaato dambe ayna dib uga imaanin. Dr. Abiy Ahmed inuu maaragtay awoodihiisii uu muujisto oo hawlihiisa uu ku xaliyo halkaas ayaa la fili karayaa. ayaan leeyahay anugu rabshadayna dhacaan mustaxiil ma laguma aamin qabo. sababtaa Itoobiya waa ummado isu yimid weeye oo kala duwan oo kala dhaqan duwan oo kala maartay wax duwan.
magacaygu waa mawlid maxamuud ismaaciil waxaan soo dhoweynayaa emergency-gan laga qaaday shacabka dowladda Itoobiya si fiican ayaan u soo dhoweynayaa runtii aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin go'aanka laga gaaray arrintaas aad baan u soo dhoweynayaa boqolkiiba boqol mid kale anaga muuna dowladda Soomaalida muuna qusayninba hawshaasi dhibaato boqolkiiba hore nagu meenanin laakiin si guud baan u soo dhoweynayaa waxyaabaha laga firi karo waxyaabo badan baa kamid ah waxa kamid ah in furfuraan fara badan ay timaado oo ra'iisul wasaaruhu uu keeno taasaan rajaynaya iyo rajo fara badan aad iyo aad baad mahadsantahay magacaygu saddexan waa Mukhtaar Cali Dhuux xaaladda emergency-ga 6 bilood ahayd ee la qaaday aad baan yaa loo soo dhaweynayaa ka anigu shakhsi ahaan muwaadin ahaan maxaa la fili karaa inuu wadankan ka dhaco waxaa la fili karaa ra'iisul wasaaraha cusub awoodihiisa iyo dadaalka maaragtay uu wado in maaragtay uu aad maaragtay hawl soo jiidanaysa shacabka indhaha shacabka soo jiidanaysa inuu sameeyo ayaa la filayaa marka waa ifafaalo fiican marka dhanka laga eego xagga deegaanka kollayba deegaanku wuu deganaa oo hawsha ka jirta Itoobiya inteeda kale kama jirin kililada Oromada iyo Addis Ababa iyo ka jiray kama jirin laakiin hadda ahaan annagu waan soo dhaweynaynaa ma laga yaabaa inay dib u cusboonaadaan mudaharaadiyadii dhawaanahan ma filayno hawsha mana filayno in kacdoonnadii iyo mudaharaadyadii ay mar dib ka soo bilowdaan maadaama ra'iisul wasaarahan cusub uu yahay maaragtay Oromo uu yahay xagga ka soo jeedo Oromaduna ay ahaayeen dadkii inta badan u xoogan ama u farabadnaa mudaharaadadii ka dhacayay wadanka bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Hoodo Aadan haddaan ka dhiibtay ra'yigayga xukunka degdega la qaaday annaga waxaan uma soo gaadhin in la qaadana waa sax waayo wadanka furnaantiisa ka qayb qaadanaysa waa hagaag wararka kale ee Itoobiyana waxaa ka mid ah jigjigaca oo waxa lagu caleema saaray ugaas beeleed balse ugaaskii beeshan ayaa nool waxa aanu joogaa magaalada Addis Ababa waxaana ka horeeyay beesha degtaa magaalada Qabri Dayax haddaba arrintan ayaa lagu caleema saaray ugaaskan ayaa hore u dhicin bal sidaas waxyihiinna waxa aan ka waraystay ugaas Maxamed ugaas Gure waxaan ku sugnahay dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya runtii waxa weeyaan waxaan caawa kulan xalfad ballaaran uu ka dhacay hotelka Nagab ee ku yaala dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya xalfadaas lagu caleema saaranayo ugaas urur Cabdullaahi Xuseen oo ugaaska beesha Cali Wanaag oo maanta ay kulansan yihiin dhammaan waxgaradkii salaadiinta dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ka soo jeedo ugaas beeshan iminka ugaaskan loo caleema saarayo ugaas hore ayuu lahaa sida aynu ka warhayno oo leeyahay Cabdi Cabdilaahi oo Addis Ababa jooga ugaaska ama beesha bedeshay wallahi runtii waxa weeyaan sidaad u sheegtay weeyaan ugaaskan maanta aan caleemahan saaranay waa ugaas waxa weeyaan lagu soo caleema saartay gobolka Nagab Ceelweyne waa ugaas waxa weeyaan beeshaysa ay soo caleema saartay weeyaan kadib waxa weeyaan anaga waxaan ka mid nahay salaadiinta dowladda deegaanka Soomaaliya ayaa ka mid nahay sidaas laaligeeda waxaana lagu casuumay ama lagu martiqaado waxa weeyaan xalfadda caleemasaarka ee ugaaskan maanta ay beesha soo xubatay waxa weeyaan markii hore lagu soo caleema saartay xarunta gobolka Ceelweyne maanta waxa weeyaan xalfadiisana ay si ballaaran uga dhacayso caasimadda Jigjiga tan baan runtii anaga aan goobjoog u nahay tan anaga waxa weeyaan caleemasaarkiisa iyo hawshiisa ayaan si buuxda wax kaga sheegi karaa caadiyan marka ugaasyada la caleema saarayo dhinaca dhaqanka iyo xagga miyaanu ka dhicin caleema saarku runtii waxa weeyaan ugaas markii la caleema saarayo beeshiisa ayaa soo caleema saarto waxa weeyaan runtii waxa weeye ugaaskan maanta aan u joogno xalfadiisa caleema saarkiisa aan u joogno beeshiisa ayaa kusoo cabashubatay kadibna waxa weeye anaga maadaama aan salaadiinta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya aan ka mid nahay oo waxa weeye wada shaqeyn iyo midnimo iyo waxa weeye talo naga dhaxayso markastaba runtii waxa weeye sidaas baan maanta lagu martiqaaday xalfadana sidaas laga soo qayb galnaaden ugaaskii beeshaasi ay lahayd Addis Ababa ayuu joogaa waanu maqalay Cabdi Cabdilaahi isaga markaa isma ugaas baa runtii waxaanu qaadan karnaa walaal aad badan ma santaa waxaanu qaadan karnaa ama anaga aan goobjoog uga noqon karnaa ugaas ka ay beesha keensato madax ku soo qaadatay oo ku soo cabashubatay anagana haddaan nahay salaadiinta dhaqanka haddaan nahay in waxa weeye nagala soo qayb gal hadda yiraahdeen iyagana ay nagu casuumeen waxaanu ku qasbannahay waxa weeye sida sheerka Soomaalidu yahay marba haddii lagugu yeeray beeshii iyo waxa weeyaan ciddii markaa waxa weeyaan ku caalashubat markay ku yeeraan in adigana ku sharaftid
kana qaybgeshida horta waajib ugu weyn oo la saaran kaa weeyaan. ugaas waxaan doonayaa in dadka ina dhegeysanaya ay fahmaan ugaaskii hore ee beeshu miyuu iscasilay ma xilkiibay beeshu kula noqotay weli ma ugaaskiiba beeshii ma laba ugaas bay yeelatay bal halkaa noo yara bidhaami. taa markaan ku bidhaamiy runtii waxa weeyaan beesha ugaaskan hadda la caleemo saarnahay ayay isku raacday. kii hore runtii waxa weeyaan mid hadda kahor lagu caruusbatunuusan ahayn baan filayaa sida ay hadalka u dhigayeen waxa weeyaan beesha uu hadda ugaaska cusub oo uu ka soo jeedo. hadalkaasina waxa uu u dambeeyey ugaas maxamed ugaas guure oo igu warramayey khadka telefoonka magaalada jigjiga. wararka caawana waxaa ugu door weynaa xisbiga talada haya ee dalka etoobiya ee EPRDF ayaa waxa ay sheegeen inay ogolaanayso heshiiskii soohdinta ee ay Eritrea ku muransanaayeen taasoo guddi xuduudaha baadho uu Eritrea ugu wareejin doono laba deegaan. Etoobiya ayaa sheegaysa inay tani qayb ka tahay dadaalada nabad waarta oo lagu gaadhayo kadib dagaalkii sanadkii 1998 dhex maray labada dal oo ay ku dhinteen 70,000 oo ciidan ahi. deegaanka uu muranka weyne ka taagnaa ayaa ahayd magaalada Badme oo guddida xuduudaha u sheegay inay ku taalo dalka Eritrea. taniyo go'aankaasi guddiga ciidamada Etoobiya ayaa ku sugnaa magaalada Badme iyadoo xukuumadda Addis Ababa ay ku adkeysanaysay inay deegaanka Badme ay ka mid ahayd Etoobiya. boqor cabdalaha urdun ayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi u sheegay in dowladda cusub laga filaya inay dib u eegis ku sameeyaan dhammaan hanaanka cashuurta si dhammaan shacabka dalkaasi ay u wada sinaadaan. warqadii magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub cumar al rasaas ayaa boqorka wuxuu ugu baaqay in wadaxaajood uu ka galo hindisaha sharciyeedka dibadbaxyada ka dhashay. dibadbaxyadan ayaa ka qasbay boqor cabdalle inuu xilka ka qaado ra-iisul wasaaraha shacbiyada badan lahayn ee hani mulki. 7 qof ayaa waxaa lagu dilay dad looga shakisan yahay inay yihiin koox jihaadoon ah dalka Mozambique. weerar kale oo ka dhacay waqooyiga Mozambique ayaa waxaa laga gubay guryo. booliiska dalkaasina waxa ay sheegeen in dilka dadkani loo adeegsaday baangado islamarkaana ay rumaysan yihiin in weerarka ay fuliyeen isla kooxdii qoorta ka goysay 10kii bishii aynu soo dhaafnay. dadka tan iyo bishii Oktoobar koox loogu yeero al-shabaab ayaa dhowr weerar waxa ay ka fuliyeen gobolka Cabo Delgado ee dalkaasi Mozambique. bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah. haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bogga internetka ee laanta af Soomaaliga mar kasta iyo meel kasta. iyadoo lagu guda jiro xilligii qalinjabinta ardayda ayaa sanadkan ardayda Soomaaliyeed ee ka qalinjabinaysa jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee dalka Mareykanka ay keenayaan guulo lagu farxo. ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha ayaa ka baxaya jaamacadaha ugu caansan dalka Mareykanka waxaanay barteen culunta kala duwan ee halkaasi lagu barto. ardayda dugsiyada sare ka qalinjabinaysa waxay qaar ka mid ah helaan jaamacadaha dalkaasi ugu sarreeya. Siyaad Maxamuud Cali waa gudoomiyaha waxbarasho ee magaalada Minneapolis waxa uu warramay wariyaha BBC-da Maxamed Xaaji Xuseen Shiine. marka laga yimaado dadka cadaanka ah waxaan filayaa dadka marka laga hadlayo ajnabiga kale ama qowmiyadaha kale ee asal ahaan ka soo jeeda Africa iyo Asia iyo wadamadan Latin America Soomaalidu kaalin muuqata oo fiican bay ka galeen oo loo oran karo maartay runtii waa guul weyn oo farxad iyo diila gelinaysa jaaliyada. guulahaasna waxaa sabab u ah fahamkii la fahmay muhiimadda ay leedahay waxbarashadu taasoo keentay in ay tartan ma fara badan ka qayb galaan, guulo badanna soo hooyaan, qaarna ay weli dhigtaan, qaarna ka qalin jabinayaan jaamacadaha ugu fiican dalkan. cilmi kasta oo waddankan laga bartabay baranaya ardayda Soomaaliyeed oo ay ka qalin jabinayaan. runtii waa wax weyn, weliba xagga sayniska baryahan aad bay ugu fara badan yihiin iyo teknolojiyada. taasna maaragtay waa wax runtii diila gelinaya. laakiin haddana cilmigu waa isku wada mid
mid kasta waxbuu anfacayaa mid kastana waddanka waa looga baahan yahay ardaygana waa cilmigu u anfacayaa meel kastuu tago laakiin jaamacadaha ay galayaan ardayda soomaalida ama ka qalin jabinayaan waa jaamacadaha ugu sarreeya waddanka maraykanka baa laleeyahay oo jaamacadda minnesota ay ka mid tahay harvard yale guulahaas waa guulo lagu farxo waad og tahay jaamacadaha way kala magac waaweyn yihiin laakiin waxaan odhan karnaa jaamacad kasta oo magac iyo maamuus leh oo waddanka ku taalla arday soomaaliyeed baa dhigata horena u dhiganaysay haddana qaar baa maaragtay sanadkan gelaya oo iyaduna wax lagu farxaa inay arday soomaaliyeed gelayaan jaamacadaha ugu fiican oo ay ka mid tahay University of Minnesota oo iyadu ka mid ah gobolkan ku taalla jaamacadaha iyagoo Harvard University iyo Yale iyo marka waxaan dhihi karnaa jaamacado kale oo fara badan baa iyaguna jiro saasoo kale ugu wanaagsan meel kasta maaragtay waad ka helaysaa arday soomaaliyeed waqtigana waad ogtahay waa waqtigii iskuulladu xidhmayeen oo aanu ku mashquulsannahay xafladihii qalinjabintii iyo ardaydii saanu u siin lahayn shahaadooyinkii marka taasna waxaan u malaynayaa saad ogtahay waddankan waa loo dabaaldegaa ama waa loo xafladaha loo qabtaa ardaygu marka uu guulaysto oo qalin jabiyo bal maxaa keenaad is leedahay inay bataan sanadba sanadka kasii dambeysa ardaydaasi maxaa keenay ardayda soomaaliyeed weliba si gaar aan usii ammaano oo gabdhaha oo kaalinta koowaad ka gala mar walba xagga waxbarashada waana ku ammaanaya runtii waana uga mahadnaqaya dadaalka ay gabdhuhu muujiyeen waana halbowlaha ummadeenna weeye haddii halka la joogo iyo haddii waddanka gudihiisa la joogaba waana ku dhiirigelinaya way ka badan yihiin baa la sheegayaa wiilasha gabdhaha kaga fiican baa leeyahay xagga waxbarashada gabdhuhu mar walba wiilasha way ka fiican yihiin gabdhuhu mar walba waynaga fiican yihiin marka anigoo fursadda ka faa'iidaysanaya waalidiinta waddankii joogayna waxaan leeyahay gabdhaha lagula dadaalo waxbarashada gabdhihii markii qurbaha yimaadeen way ka karti badan yihiin xagga waxbarashada guulo waaweynna way soo hooyeen marka ardayda hadda ugu faraha badan ee qalin jabinaysa guulaha xadaafkaa soo hooynaysa waxaa hormuud u ah gabdhaheenna oo aan ku faano guulaha ka soo hooynayaan xagga waxbarashada hadalkaasina waxa uu dambeeyey siyaad maxamuud cali gudoomiyaha waxbarashada ee magaalada minneapolis wariyaha b b c da maxamed xaaji xuseen shiine ayuu u waramayey iiraan si rasmiya waxay u sheegtay inay dib u bilaabayso nidaamka ay ku tayeynayso awooddeeda uraniumka kadib markii uu madaxweyne donald trump go'aansaday inuu ka baxo heshiiskii caalamiga ahaa ee nukliyeerka iiraan waxa ay ku adkaysatay inay ka gudbaynin shuruucdii lagu heshiiyey ee la xidhiiray heshiiskaasi wariyahayaga diblomaasiyadda james landale ayaa warbixinta noo soo diray axmed nagaashi ayaa inoo soo koobaya markii donald trump bishii hore ka saaray dalkiisa heshiiskii iiraan lala galay ee nukliyeerka waxay iiraan ku hanjabtay inay dib u bilaabi doonto barnaamijkeedii nukliyeerka ee heshiiskaasi xayirayey waxaana muuqata inay haatan ka dhabaysay madaxa wakaaladda nukliyeerka iiraan cali akbar saalixi ayaa sheegay in wakaaladda nukliyeerka ee qaramada midoobay dalkiisu ku wargeliyey inuu samaynayo qalabka centrifugeska la yidhaahdo oo cusub oo uu doonayo inuu ku tayeeyo shidaalka nukliyeerka ee warshadda nantaz waxaanu ku nuuxnuuxsaday in tallaabadaasi aanay ka baxsanayn qodobadii heshiiska nukliyeerka ee la gaadhay hase yeeshee go'aankaasi waxa uu ka dhigan yahay in arrintu ku adkaan doonto dalalka yurub ee doonaya in heshiiska la samata bixiyo oo ay ku qancin kari waayaan kuwa qaba in iiraan oo dib u dardargelisa howlaheeda nukliyeerku ay halisteeda leedahay waa hagaag nagaashe aad ayuu u mahadsan yahay oo warbixintaasi inoo soo koobayey wararkii cayaarahana haddii aynu eegno iyadoo 14 bishan uu bilaabmayo koobkii kubadda cagta ee caalamka ayaa wadamada cayaaraha saaxiibtinimadaasi cayaaraya waxaa maanta cayaaray ruushka iyo dalka turkiga 1-1 ayaanay cayaartaasi ku dhammaatay halka Romania iyo Finland ay Romania 1 kaga badisay Finland Luxembourg iyo Georgia shiyana waxa ay cayaarayaan haddii ilaahay raalli ka noqdo 7 fiidnimo ee saacadda waqtigan Britain waa hagaag warar kale oo cayaaraha ku saabsan naaha goolkii barkiinkii goolka u hayay kooxda Liverpool markii laga qaaday koobka ayaa waxaa la sheegay inuu iminka Mareykanka qabtay markii cayaartaasi dhammaatay uu dhowr khalad sameeyey waxaa iminka la sheegayaa in ninkaasi madaxa nabar laga helay kadib markii la yarbooday inuu isku buuqay oo lagula taliyey inuu dhakhtarka u tago dhakhtarkiina uu sheegay in madaxa uu nabar ka soo gaadhay xataa waxaa loo malaynayaa in nabarkaasi madaxa ka soo gaadhay ay keentay khaladaadkii uu galay goolashii lagaga badiyey Liverpool cayaartaasi ay ka dambeysay waa hagaag dhegeystayaal
real madrid ayaana koobkaasi qaaday. barnaamijka waxaa isku soo dubariday axmed cabdinuur, aniga oo cabdixaafid caawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayey. dhammaan asxaabta ka qayb qaadatay annagoo isku duuban mar kasta ballanteennu waa bbcsomali.com. waa inoo iyo berito 7 subaxnimo haddii ilaahay raali ka noqdo. inta ka horaysana saas iyo nabad geliyo.